دوقسيس أنا ما دلنا مركان عنق يرى هوري راما يا ما أنا على مركان أنا دودي دسينا والله ما أنا كيستاهل الله ينتصر سنة بعينينا الله نبى ولا لماذا يبوت السلام عليكم صومالية دعوانا هاي social media هرتوا محكمة وفي عواي اسكو قرصية وايد اسكو قرصية كليب كيغان إنا إيفا قيسين وعربا ضد بaa waxay u maleynayeen anina maxay ahayd fiyus ku raadsanay fiyus ku raadsanay waxba laayka ay saaran hadaa rabtid u arkaysid anna maxay ahayd aan fiyus ku raadsanay hadaa u arkaysid in aan fiyus ku raadsanay waxba flow ay soo dhihin TikTok ana iska leh telefoonkan ana leh ma garatay qofka ooynaayna wax ka soo ooyinsiya jirta inta baay sorry ilaahdo waa mahadsantiin qeyr Allah idin sii aniga dad badan ila dhasheen 13 qof ila dhasheen kulligood kama wada sheeganay kulligoodna ma wada xumo qaar kamid ah xun ma fahanteen qoftaan ka sheeganay aad ooga sheeganay aad ii dhaawacday walaalay dhaawacayada ii geysata kulli ii may geysanin ma fahanteen mar kastana saan iyo saka darna iiga ooyinsiisa oo inta xalay bilaawa ilaa hadda ku jira hibo ma qaan gaarin markay cay igu bilaabay hibaa la dhahay hibo maxamuud aadan la dhaana ila dhalatay curud aabahay waay igama dharagto hatta waxaan xasuustaa intaan u fariista maalin guriga intaan u tagaandhe ciilka ii qabtaa ka fuqee idilaan dhe section 3 ay daganta kumi dadka garanay way garanayeen hibo waxay dhahaan waa u fariista markaasana baa ciilka intaas oo sano markaan yara ilaa hadda ii qabto balaha ka fuqee idila taabaan dhe si aan iiga daysoon cayda ila daba socoto qof weynaan ahay ilmo yar miihi hibo hooyaday aabahay maxay ahayd way iga qaban waayeen waa la iga celin waayay hibo Soomaaliya idinkaan in bandhiga hibo waxay dhahday ninkayga waa shukaansata ay bari dhan dadka dhan oo u sheekayna qof kasta anigoo yaro 18 sano jir dadka dhan runbay u maleynayeen markaasaan madaxa hoos geyni waan fikiri waan yaabi ninki kama hortagi kari ma dhihi kari dumaashi goormeen ku shukaansada gabdhii dariskeeda dadkii oo idil waxay ugu sheekeynaa ninkeeda shukaansada taa waxaa iigu soo xigtay wiil Ibrahim la dhaala oo naxariisto mareexaan in sheekaysana intay ugu tagto gurigiisa waxay ku dhahday dukaan uu ka shaqaysana waxaan maqlay Ibrahim oo ina guursan rabto Maryam maxay ahayd naagtaas ay tahay ninkeeda ilmaha ay u dhashay ay dhisu u dhintay ilmaheedana way u dhinteen ayadana way qabtaa ha guursanin wax ka xun miyaa jirta feature-kaadi maxay ahayd qof uu ku ciyaarayo uu caynahay oo ceeb ani aan lahaynay dushiiga saartay markaas wiilka iga cararay Ethiopia intuu aadu wuxuu gabar ka soo guursatay asagoon soo gaarin maxay ahayd doolo waa gaari laga doomo dhintay inta gaari uu ka cararay aniga jeclayn uu iga cararay uu iga tagay hadal ay walaashay dhaho darteeduna iga tagay mustaqbalkayga meeshaas ay ku burburisay hibo ma fahanteen waxa iigu soo xigtay waxa kale ay dhahdaan xasuusta hal wiil ee ifka ka fiirsataa jirta oo maxamed saalax la dhaho hadda waxay dhahday Maryam anigoo dharka u dhaqaay oo guriga ka hagaajinay oo weelka u dhaqaay oo walaalnimo salaad ugu soo kalahay inta soo orday waxay tiraahayay Maryam ma aragtay wiilkayga hadda wuxuu la shubmaayo calool xanuunka ugu dhac siilkeeda dhuuqsiisa ana ma dhilaana markaan cunug yar hawar yar ama oo aan dhala markaan dawadayda siinay ma fahanteen taa waxa iiga sii darneed hibo waxay adduunyadan korkeeda idin mala naagta way ciisha maal oraano maxay ahayd waxaan halkunaan dhaaf waaye Soomaaliya u bandhigay wax guur rabaa iska dhigay markaas waxaan Soomaaliya guuraan rabaa guursan